habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararka caalamka ugu waaweyn caawa wadahadallo kulul ayaa madaxda G7 ay ku leeyihiin Sicily iyagoo isku dayaya inay wax ka qabtaan argagixisada ganacsiga iyo isbeddelka cimilada madaxa hay'adda WFP ayaa sheegay in macluusha South Sudan aan la aqbali karin waxaanu la hadli doonaa David Beasley oo ka soo laabtay booqasho uu ku tagay waddankaasi barnaamijka toddobaadka ee tiknoolajiyadda ee Clickna waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay oo uu ku jiro mashiin laga dhigay una shaqaynaya sida booliiska madaxweyne Trump ayaa ka qayb galaya shirka wadamada adduunka ugu dhaqaalaha waaweyn ee G7 ee ka dhacaya Sicily oo Talyaaniga afar ka tirsan madaxda shirka ka qayb galaysa ayaa cusub ajandayaasha ugu weyn waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada ganacsiga isbeddelka cimilada dagaalada Ciraaq iyo Suuriya Cabdiraxmaan Bidaan ayaa ka waramaya qarniyadii la soo dhaafay waxay ahayd buurtan dusheedu meel ay ka dhaceen wacdaro badan oo caalami laakiinse imika madaxda halkan joogta waxa iyaga miiska u saaran bal waxa laga yeelayo argagixisada caalamiga ah ra'iisul wasaaradda dalkan Britain Theresa May ayaa iyadu waxa ay noqonaysaa gudoomiyaha guddida shirka ee ka hadlaysa sida bal argagixisada looga hortagayo shirkan G7 waa kulankii ugu horeysay ee uu ka soo qayb galo madaxweyne Donald Trump madax badan oo shirka joogta ayaa waxay ka walacsan yihiin in madaxweyne Trump uu isagu qaado jiduu isagu jeexday marka ay noqoto arrimaha isbeddelka cimilada caalamka iyo ganacsiga adduunka laakiin dawladda shirka martigelisay ee Talyaaniga ayaa waxay ku dadaalaysaa in shirku noqdo mid guul ku dhamaada marka laga hadlayo arrimaha argagixisada madaxda qaar ayaa sheegay inay aad ula dhacsan yihiin tallaabooyinka iyo hadallada ka soo yeedhay Donald Trump si buuxda ayaan ugu raacsanahay marka uu lahaa waa inay xooganaadaan bulshada caalamka G7 Mareykanka Yurub xitaa marka ay timaado falalka xun sida argagixisada iyo ISIS laakiinse ra'iisul wasaaradda dalkan Britain Theresa May ayaa iyada weli waxaa hor yaalla howlaha ku saabsan falkii argagixisada ee ka dhacay dalkan Ingiriiska oo weli hawshiisu ay socoto iyada oo weli baaritaanadu ay xawli ku socdaan magaalada Manchester faafaahin dheeraada oo ku saabsan shirka dalalka G7 iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa boggeena bbcsomali.com adigoo si fudud uga gali kara moobilkaaga dalka Soomaaliya qiyaastii 363,000 oo caruur ah oo 5 sano ka yar ayay nafaqo la'aan haysaa qiyaastii 6.2 milyan oo ah kala bar bulshada Soomaaliya ku sugan waxa wajahaya cunno la'aan haddaba madaxa cusub ee hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ku sugan bariga Afrika wuxuu booqday South Sudan oo xaalad xun uu ka sheegay South Sudan waxay ka mid tahay afarta dal ee colaadaha ugu xun hadda ay ka taagan yihiin halkaasi oo 1.5 milyan oo caruur ay halis ugu jiraan in ay nafaqo la'aan u dhintaan Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya sidani waa habka ay cunnada ku helaan boqolaal kun oo u dhashay Suudaanta Koonfureed iyada uu socdo dagaalka u dhaxeeya ciidamada iyo fallaagada ayay rayidku u qaxeen xarumaha qaramada midoobay si ay ugu nabad galaan waxayna hay'adaha gargaarka ka niyad jabsan yihiin waxa ay tani uga dhigan tahay dadka waa musiibo waa meesha ugu hoosaysa waxay ila tahay in deeqbixiyaasha sida aan maqlay dulqaadkoodu uu sii dhammaanayo waxaan u malaynayaa inay tahay inay go'aan ka gaaraan meesha ay lacagta ku bixinayaan iyo goobta muhiimka ah haddii hoggaamiyaasha dalalkaasi aysan ismuujinin oo aysan isku dayin in ay waddada u xaaraan shaqada waxaan u malaynayaa inaan arki doonno deeqbixiyaasha oo meelo kale aan looga baahnayn jooga dhaqaalahoodana meelo kale ku bixinaya tani ayaa ah yaa noolaanaya ama dhimanaya waxaa jira walaac ku saabsan haddii xitaa la bixiyo dhaqaale in xaaladda ammaan ay adkaynayso sida rayidku ku heli karaan waxa ay u baahan yihiin qaramada midoobay ayaa joogto uga cabata in shaqaalahooda ay ciidamada Suudaanta Koonfureed ka hor istaagaan sidii ay ku gaari lahaayeen qaybo ka mid ah dalka waxaad haysataa laba arrimood sida ay ila tahay waxay kala yihiin 1 bixi dhaqaalaha aan u baahannahay iyo 2 dhammee colaadda cadaadiska loo baahan yahay waa in la saaraa hoggaamiyaasha dagaalkana waa inay joojiyaan
meesha ay doonto ha ahaato 10 ka mid ah 13 dal ee dhaqaalaha ugu badan aan ku bixino waxaa ka taagan colaad bini'aadamka uu sababay. 10 out of the 13 are man-made conflict areas. madaxweynaha suudaanta koonfureed Salva Kiir ayaa xabad joojin ku baaqay iyo wadahadal uu la galo mucaaradka, balse tani uma eka mid degdeg ku joojinaysa dagaalka. bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. ugu yaraan 26 qof ayaa lagu dilay 25 kalena way ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday bas ay saarnaayeen qibdiinta Masar koonfurta waddanka. rag dabley ah ayaa weeraray dadkaasi oo u socday goob ay ku cibaadaystaan gobolka Minya. weerarkan oo cidina aanay sheegan ayaa waxa uu yimid kadib 2 weerar oo kale oo lagu dilay konton Kirishtaan ah. sarkaalka la dagaalanka argagixisada ugu sarreeya UK ayaa sheegay in booliiska ay u xireen tiro dad ah weerarkii ka dhacay Manchester. kaaliyaha madaxa booliiska Mark Rowley ayaa sheegay in ay koox badan qabteen oo qayb ka ah shabakada argagixiso oo ay aaminsan yihiin in Salman Abidi uu qayb ka ahaa. 8 qof ayaa hadda u xiran dambiyo la xiriira argagixiso. daadad iyo buuro soo rogmaday oo roobka mansuunku keenay ayaa Sri Lanka ku dhuftay oo dilay 25 qof. mas'uuliyiinta masiibooyinka ayaa sheegaya in tiro ka badan 40 qof la laayahay. meelaha waxyeelada ugu daran ay soo gaartay oo gobolka koonfur galbeed ee Kalutara ayaa lagu soo warramayaa in 8,000 ay ka baxeen guryahoodii. saynisyahanada ka howlgalaya barnaamijka cusub ee hawada sare ee Mareykanka ee Juno ayaa sheegay in aragtidoodii ugu horeysay ay aad ula yaabeen. gaar ahaan waxay aad ula yaabeen dhagxaanta ay ku dhex arkeen meerahaasi 10 hurricanes oo kiiba dhulku u la eg yahay oo isku dhex soconaya. dagaalka Ciraaq waxa qaabab kala duwan u duubay ama u sawiray wariyaal badan, balse weli sidan oo kale looma duubin. kaamarooyinka BBC-da oo la saaray diyaarad ciidamada Ciraaq ay leedahay ayaa duubay muuqaalka kore ee magaalada Mosul. wariyaha BBC-da oo la yiraahdo Joe Inwood ayaa usbuuc la socday duuliyaashaasi oo la dagaalamayay kooxda mintidiinta ee la baxday dowladda Islaamiga. waa tan warbixin uu ka diyaariyay oo Axmed Xaaji Xasan uu soo jeedinayo. kani waa dagaalka magaalada Mosul ee dalka Ciraaq. sidan oo kale horey looma arag. waxaa laga duubay hawada sare iyadoo la isticmaalayo kaamiro 360 digri ah. waxaan saaranahay diyaarad Ciraaq laga leeyahay oo loo yaqaano MI-28. hadda waxay ka kacaysaa garoon ku dhow magaalada Xamaam Cali oo 30 kiiloomitir u jirta koonfurta Mosul. dhinaca midig waxaa ka muuqda webiga Namar. dhowr maalmood kadib markii muuqaalkan aad duubnay, helikabtar ayaa la soo riday. waxaan u malaynaynaa in diyaaradda hadda aan eegayno ay tahay. labadii duuliya way dhinteen. hadda waxaan dul joognaa bariga Mosul. waa qaybtii ugu horeysay ee ciidamada Ciraaq ay qabsadeen. haddana si nabad ah ayay u maamulayaan. markan dhanka galbeedka ayaan ku soconaa. waxaa naga horeeyo garoonkii hore ee diyaaradaha. sannado ka hor eelaboorkan aad ayuu mashquul u ahaa. dhanka waqooyiga ayaan markan u jihaysanay. halkan ayaan dhowr ilbiriqsi istaagaynaa si aan dhowr arrimood u eegno. magaalada qadiimiga ah oo dhismayaal qurxoon ay ku yaallaan. meesha la filayo in dagaalka ugu adag uu ka dhici doono. goobtan waa buundada 3aad. isu socodka ayay muhiim u tahay, waana la dumiyey sida kuwa kale. kani waa madxafkii hore. waa meesha uu ururka la baxay khilaafada islaamka ku baabi'iyey farshaxano qadiimi ah oo qaali ah. kanna waa masjidka al-Nuuri. waa meeshii uu ka hadlay Abubakar al-Baqdaadi kadib markii uu noqday madaxa khilaafada. kadib saacado oo xabad la'aan ah, hadda ayaa rasaas la riday. lama sheegi karo waxa diyaaradda ay bartilmaameedsanayso, laakiin waxay u muuqataa inay tahay dhanka magaaladii hore, dhinaca masaajidka al-Nuuri. kaasna waa dagaalka Mosul. waa qayb yar oo u muuqata wax aan horey loo arag. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn. kooxda loo caleemo saaray horyaalka Ingiriiska ee Chelsea
ayaa isku diyaarinaysa ciyaarta finalka ee koobka FA oo dhex maraysa iyaga iyo Arsenal Brito. Kooxda Chelsea ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda waxay raadinayaan 2 koob in ay qaadaan. Arsenal waxay rajaynaysaa in ay meel sare ka gaaraan kadib markii ay booska afraad ka waayeen horyaalka, iyadoo mustaqbalka maamulahooda Arsene Wenger la hadal hayo ayuu wuxuu sheegay inuu diiradda u saarayo ciyaartan finalka ah. Manchester City ayaa xagaagan u bilowday iyada oo ay ka tagayaan 4 ciyaartooy oo magac weyn ku leh kooxda. Goolayaha Willy Caballero, Jesus Navas oo dhinac ka ciyaara, Gael Clichy iyo Bakary Sagna ayaa dhammaantood ka tagaya naadiga. Waxay ka dambeysay kadib markii kaalinta saddexaad ay ka galeen horyaalka, iyadoo markii ugu horeysay Pep Guardiola uu maamulo koox Ingiriis oo England ka dhisan. Everton waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay ee horyaalka Ingiriiska ee ka ciyaarta dalka Tanzania. Markay u ambabaxaan ciyaar saaxiibtinimo oo ka hor xilliga ciyaareedka dhacaysa, ciyaarta oo dhacaysa bisha July ayaa qayb ka ah heshiis naadigu uu la galay shirkad ku taala bariga Afrika oo la yiraahdo Sport Pesa. Everton waxay la ciyaari doonaan cidda ku guuleysata furitaanka koobkaasi Sport Pesa la yiraahdo. Tartankaasi oo ah mid ay ka qayb galayaan 8 kooxood oo ka dhisan Kenya iyo Tanzania. markana ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyadda ee Click. Suhayba Maxamed Baqdas ayaa soo jeedinaysa. Dubai ayaa daafurtay robodkii ugu horeeyay ee boolis ah. Wuxuu fariimaha la xiriira dambiyada iyo fiidiyo u gudbinayaa boolis bini'aadam ah. Ganaxyada ayuu wax ka qabanayaa, wuxuuna aqoonsanayaa wajiyada dadka. Hadda wuxuu ku hadli karaa luqadda Carabiga iyo Ingiriiska oo kaliya, balse waxaa jira qorshe ah in uu ku hadlo luqadda Ruushka, Shiinaha, Faransiiska iyo Isbaanishka. Shirkadda Volvo ayaa ku dhawaaqday inay la shaqaynayso gawaarida qashinka qaada oo iswada. Waxay daba soconayaan qashin ururiyaasha guri walba oo ay istaagaan. Waxa lagu rakabay aalad dareen leh si ay uga caawiso dhexmarka dhismayaasha la degan yahay. Dhaqdhaqaaqa baabuurtan ayaa kor lagala soconayaa si loo ogaado adeegsiga shidaalka iyo kaydka quwadda. Hannaanka Google AI ee AlphaGo ayaa kaalinta koowaad ka galay dunida. AlphaGo ayaa bartay in uu dheelo ciyaarta Shiinaha ee qadiimka ah, iyadoo uu bartay tartamo qadiim ah, uuna isla ciyaaray kumanaan ciyaarood. War u xun haystaha bini'aadamka ee horyaalka Go, balse u wanaagsanaan kara dawooyinka iyo sayniska mustaqbalka, maadaama kombiyuutaradu ay ku sii fiicnaanayaan xalinta xaaladaha adag. Markana waxaa xusuusin mudan in ikhtirac kasta ee ku dhisan teknoolajiyad sare ay u dhici karto farsamo ka teknoolajiyad hooseysa. Samsung ayay markale haysataa dhibaato kadib markii cilmi baarayaal ka socda naadiga Kiosk Computer Club oo ka kooban koox kombiyuutarada u dhaca ee Yurub ka jirta ay soo heleen qaab fudud oo ay ku furan karaan taleefanada Samsung, iyagoo sawirka il iyo ookiyaal soo saaraya. Samsung ayaa u sheegtay BBC in ay ogeyd arrintaasi. ugu dambeyntiina waxaan idin tusaynaa sawirro cajiiba oo ka yimid dalka Australia, halkaasi oo mid ka mid ah dhismooyinka adduunka ugu caansan guriga masraxa ee Sydney ay ku soo bandhigeen sawirro cajiiba ee munaasabadda sanadlaha ee nalalka ama iftiinka. Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay in ka badan 90 sawirro nalalka laga sameeyay oo ay dejiyeen farshaxaniistayaal ka badan 180, kuwaasi oo isugu jiray kuwa deegaanka iyo kuwa caalami ahba. wararkaasi iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeena bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aynu ka shaqaynayno waxa kale oo aad ka helaysaan BBC Somali Facebook. ha hilmaamin waxaad sidoo kale aniga iyo asxaabtaba nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka Twitterka ee @bbcsomali. ugu dambeyntii caawa bishii barakaysnayd ee Ramadaanna way bilatay. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Ramadaan kaliim ayaanu idin leenahay. habeen wanaagsan.